wafdi ballaaran uu hogaaminayo hogaamiyaha ruuxiga siyaasi Baashe Cali Jaamac ayaa si weyn loogu soo dhaweeyay degmada Aare Cadeeye galabta. Wafdigan uu hogaaminayo ayaa ka soo kicitimay magaalada Ceerigaabo ee xarunta gobolka Sanaag. Siyaasigan ayaa dhawaan ku biiray xisbiga mucaaradka ah ee wadani isagoo ka soo baxay xisbiga talada haya ee Kulmiye. Qaar ka mid ah taageerayaashiisa ayaa kaga hortigay meel ka baxsan magaalada Aare Cadeeye 5 kiiloomitir waxaana si weyn loogu soo dhaweeyay halkaasi. Ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah dadkii soo dhaweeyay kuwaasoo sheegay inay ku faraxsan yihiin imaatinka Baashe Cali Jaamac. Heer Cadeeye waxaan soo dhaweynaa si ballaaran si diiran soo dhawaada ku soo dhawaada Aare Cadeeye wadanaysan gobolada bari Baashe Cali Jaamac xisbiga wadani waxaan leenahay ku soo dhaweeyay gobolka Sool ku soo dhaweeyay degmada Aare Cadeeye وأنا من باشا يحنا على صلاة وحنا سود ونوع دمنا على عدايا. كانوا نكسلونا ارتبط باللارن وتبص على الجامعة وسيرك وراء إمانتي بيها هذا ما يلا دمنا على عدايا ما قبل كسول. أنتوا كم أنا باشا سياسة ده وعنوتها يعني ما بنوهاي وصل بقى شعبك waxaan isku dubadacnay markii la yiraahdo Baashe Cali Jaamac ayaa ku biiray xisbiga ballaaran ee ka tirsan xisbiga wadani oo la soo gaaray hadeer alxamdulillaah rabbil caalamiin weeyaan degmada Aare Cadeeye ama gobolka Sool soo badan tahay maanta waxaan xal dabado u aaminsanahay inaan wadani soo dhaweeyno kamid ana wareer Aare Cadeeye Baashe codka siino wadani inaan hiiliyo maanta wadani isla garab joogno waa xusbi cusub وحسوا إحنا درينا وحسوا إحنا قبلنا Aare Cadeeye guma cusbo waa markii labaad aan imaado aan joogo dhamaantiin waan idin salaamaynaa soo dhaweynta qaaliga ah aad noo sameyseen waxaan soo maray jid dheer bedel baa dalka ka dhacaya 10 casho gudahood dalkan isbedel baa ka dhacaya waxaynu taageeraynaa xisbiga wadani oo aanu rajaynayno in aynu kaga raysano xisbigii Kulmiye ee beenta iyo ballanka baxa aynu ku naqaanay waxaan idin leeyahay reer Aare Cadeeye israadsada qof kastoo codayn kara ama cod la raadiya aynu ku aarsano gacanteena maanta waxaan idin leeyahay deegaankaas waxaanu isla garanay in hal meel loo codeeyo. ugu dambeyntii waxaa halkaasi ka hadlay hogaamiyaha ruuxiga ah ee gobolada bari ee Somaliland Baashe Cali Jaamac kaasoo sheegay in xisbiga talada haya ee Kulmiye uu ka baxay heshiisyo hore oo uu la galay waxgarad waqti maqribaanu shirarkii Awrbogays iyo kuwii Aare Cadeeye lagu qabtay ee Somaliland dadku ku noqday Somaliland waqtiga ka horeysay oo dadku qaatay oo niyad u qaatay ma jiro waxayna u qaateen sababtay u qaateenna waxa weeye ballankii axdigii lala galay ee xukuumaddii Kulmiye ay la gashay axdiga iyo ballanka waa ka baxeen وأوفوا العادة إن العالم كان مسؤولا بإلهي مردي بلان la galo ballanta waa in la oofiyaa ballantii way ka baxeen Kulmiye mar haddii ballan ka baxo muslimka god laba jeer laguma wada qaniino dib dambe Kulmiye u aamini mayno maadaama aan Sanaag ka yimi reer Sanaag ballan baan soo galay inaanay Kulmiye dambe aaminin Awrbogays baan soo maray meeshii heshiiskii koowaad lagu galay reer Awrbogays si la yaab leh bay noogu soo dhaweeyeen wali qof aan wadani ahayn maanu arag waxaanu soconaynay 350 kiiloomitir marka waxaad moodaa anaaba u dambeeyay wax wadani soo gala dadweynaha markii hore garto arkay aniguna dhawaan baanu ku soo biiray aad iyo aad baad u mahadsantihiin waa ka warhaynaa gobolka Sool halkuu marayo dhalanteed iyo kaar la iibsado iyo lacag la bixiyo iyo oday been loo sheega waqtigeedii waa dhamaaday codka 4 qof ma hayso shicib weynihiina wuu tashaday beentii buu ka daalay kala qaybintii reeruhu ka daalay xisbiga Kulmiye waa xisbiga ku guul daraystay inuu laascaanood guddi minaysan u soo diro wuxuu yidhi jiib walowba horad halkaa iga soo olole waa ka warhaynaa intii la soo diray baa hadda iyagu is haysta
wuxuu ku guuldaraystay inuu u sameeyo guddi midaysan sida gobollada dalka marka uu xukunka qabsadana muxuu samayn doonaa jilib walba jilibka kaluu ku diri doonaa si aynu madaxa iskula jirno waxba ka sheegi mayno laakiin ragga dhaxlay iyo ragga doonaya inay dib madax inoogu noqdaan waa raggii 7 sano joogay waa raggii deegaanka kan nabadgelyadiisa waad ogtihiinoo marka waxaan leenahay dadweynaha reer Soolow isbedel baynu u baahannahay waxyaabaha ku ololeeyaanna waa garanaynaa oo ay dadka qabiil isugu diraan waxaan doonaynaa dadka Sool iyo Sanaag ma kala maarmaan qabiilkay doonaan ha qaadeen xisbiga wadani wuxuu ballan qaadayaa inuu mideeyo Faarax Dubad goobjoog Laascaanood